بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنيقو سليمان باشا موسى waxaan halkan bulshada ugu soo gudbinayaa tix gabaya oo soo baxday 14 bishan koobaad ee sanadkan 2017 waxay ku saabsan tahay maansadu sida dhaqankii afkii suugaantii iyo maansadii hal abuurkii ummadeenu hibada u lahayd ee lagu majeeran jiray maanta u baaba'ay ee uu sumarxaday loogana sinaysanayo guud ahaan Soomaalidu waxay yiraahdaan maansadu waa dee amba waxaa la tiriya murti iyo madadaalo haddii labada mid noqon weydo dawas iska macnaa waxay sheegaysaa in hadal aan labadii uu ahaa dee suugaantu ahayd midna ku lug lahayn in la sameeyo maanta badihii iyo sargooyadii iyo asluubtii iyo duurxulkii wixii carabka ku xun in lagu qaawiyo la asturi jiray oo daaha laga qaado waxaasoo dhan ah mudarro ku ah suugaanta dhaqankana meelka dhac ku ah oo jira waxay wax ka tilmaamaysaa in nin walba oon hibo u lahayn doonay inuu wax tiriyo amba doonayba de inuu heeso waxa la yaab leh nin intuu rag u qaybiyo waraaqo nin walba 5 waraaqo dhigeydii bisha soo socotay waxaan doonayaa inaan noqdeen abwaan nin walba 40 erayo baa igu qoran macnaheeduna igu qoran hees baan ka samaynayaa markay saa noqotay macna darrada ku dhacday iyo masiibada heshay dhaqankii iyo afkii ay tilmaamaysaa ummadina waa dhaqanka ugu dambeyn waxay wax ka tilmaamaysaa riwaayadihii mugga lahaa ee waddanka laga soo dhigi jiray ee macnaha ku fadhiya iyo maanta waxa dadka dee looga dhigayo riwaayado iyo masraxiyad waxay wax ka xusaysaa fanaaniintii cuslayd ee dee qudbiyadii fanka ahayd ay wax ka xusaysaa tixda magaceeda waxa la mooraduug ereyga mooraduug haddaan in yar dul taago waxa weeyaan waa bargooyo qof xoolihii uu lahaa oo dhan mar qura laga warasgareeyay amba laga wareejiyey waxaana lagu sameeyaa qofka qof mageyne ah dilaa oo kale for example si kibir ah oo kas ah oon ka maahayn ku dila ayaa la mooraduuga waa la bargooya marka mooraduug baa ladhahaa dhaqankeenii baa dee imika laynaga caydayo la bartiraga waa tan tixdi majaajiliyo meexaan farshaxan ereya maadaysa murti hadalle halmuceediya culis mahadhaha waraara labadaa mid uunbay ahayd maanse curinteedi abtirsiimo hadal aan midnaba meella kaga yeelo mutuh beena qarjac muddo jaban bawsi macanaasa suugaan maqdarad loo dhigto diif la macaluulsan maqdaradu waa meesha qofku markuu amba gashiyoobo amba baahdo loo dhigi jiro loogu baahayo waa suugaan baaha lagu keenay suugaan maqdarad loo dhigto diif la macaluulsan oraah kala maroortiyo turxaan loo mashxaradayo kana maran ujeediya tiraad maqalku xiiseeyo agnaan iyo kolkii 4 midhiyo badow ma dhoodheeyey ee midhan nin hore loo hayo meel kastaba gaadhay anaa mariyey uu yidhi maduun kala maqaarsiibay ee hees mutuulkeed wixii meel yar uga eegba ninkii soo maluuqee tirshaa magac abwaan qaatay hal abuur markii erey mugloo madaxyo loo diiday maydhaxdiir sarbeeb iyo kolkii duurxu laga maarmay sargooyadiina laga madal hufiya qadankii miisaanka ee laysku maaruqay badihii midiba maar joogtay suugaantu dee baday leedhayo sargooyooyin kala wada duwan gabaylahoo geeraan lahoo jiifto lahoo hees loo waka wixiiba madaxa laysu gelinaya ee laysku maaruqay badihii midiba maar joogtay heeliyo markii miimka gabay tixi mataaraysay mudarrada caddaanka ah kolkii looga mariyeelay nin waliba markuu tiri muhdee mala ku doondoonay qasdiguna manfacadoo noqdiyo maalin ku fadhiiso gabbaan aan 7 meeri soo mura awoodayn oo mar dhaliilo ku taalo marada saaraya kolkuu yiri mujtamacaan fahmayn ereyga miisaaman ee uu masayduul tixaha midig ka hanayday geela dabidka laga hanayda kana waa maqluub midig tu ka soo galay maqluub laga kalaba ee uu masayduul tixaha midig ka hanayday ayay hibadii may dhaamanto may sharafkeed hadhiinowdi maansadii kolkii maanyo loo rogay معاشكيدي بوشاك ترميو موردوق نغوي شاعر مهندسودية قبيان ميرفو كهاللاي يمول اندير قرد دمين للما سيسي هاسيه مركلا بحلها انبسا مهمه
muumaasa waxaanaa bedelay muusig faaruqa malyuun wada fanaanaad jiro beedu meel marin midhiyuhu wuxuu baahiyaa muuqma dhaafsana wixii maxamed ina soo mariyo maahir iyo laashi magool iyo waxay luuq marwiyo maryan garaaraysay jilaa iyo maqaawiir wixii soo matelay sheeko meecaad iyo basbaas iyo huriyiyo nimankii maadayska meecaad iyo basbaas iyo huriyiyo nimankii maadayska waa meel bannaan kaalintii miidhi waa beri waraf iyo musiibiyo afgarad erayadii muumin waa xasan sheekh muumine ha waalaado maadaysdhediyo berisamaad miidhan dadkii joogay madashoodiiee dhaaxa ka maqsuuday miyay qootaqootiyo galoof siin karaan maqalka yani riwaadiyo halkaasay marayaan miisaanka laha afartaa mahiigaan curtiya maya arooryaadhe duluc aan u miidaandayiyo arar ma dhaafaandhe cid hindiida mooye xogaan muran ka taagnaydhe afar kalena milicsiga balan midhal ka faalleeyo dhan kaloo dhaqankiisna uu ka dumay nin haldoora wuxuu mawdku dulay mudanayaal sheegan maguug iyo wixii timacad iyo madiya geeriyooday wixii gumaro qaaliya meherad maanshe laga buuxshay magaalooyin shidan oo camiran moodka iyo noolba wixii miigga duwayo madfaco moqolosee ciiray laga kabay mashaqadii dhacdiya maal wixii lumay waxaala wixii kale inuunba laga soo kabto nabadse gaadhay meel halisabaan daynin mililkii murtidiyo hiddii naga cambaday dhaqankii meecaaday mansuuq afkeennii noqdaan maaro loo helin barbaarteennu waa mahaye moog seegan marinkii barahoodu waa musalsalkiiyo filin maraykaan been iyo maneenay macasida waxay daawadaan reebe mawluhuye been iyo maneenay runtii kaga mashquuleen gacan kuma jirto maatadii mawjadaa sidee mushtar aan tulayn baa u furay meherad shaydaane maalin iyo alleyl ii dheh baa lagu muqeeyaay waa lagu sasabayaa yusur midaba maariin dhalaal muunadda ugbaadka hablihii masciideedka hawl lagu misaalayay doqon iyo habeen baa madow nacab ku maanqaadi dhiiqooyin baa lagu makalay mariyey diirkii maqaarumo bad qabo oo jirkii badiba waa moode quruxdii macbuudsiiyey iyo muuqii dhalankooda shaydaan maroola uga dhigay in la maanacaye kama tage abuurtii wacnayd hoolna loo mariyey maariya kallaariya qisada muhanad mooyaane ka mallafan haween maadad kale mana daneeyaan waxba yaan ku maaxdimin tixdoo muruga qiirooni waxa muusinkii yahay ama afmeerkiya rag ninkaan maraan iyo ahayn mahsaniye liiti ama aan majnuun iyo ahayn ruux marfuuc qalina xilka maanta sugaya u yaal waa mid qara weyne macna guurka dhaqankii ku dhacay marixii sooyaalka mugdigaa hiddii daahay iyo dayaxmadoobaadka ila kama dhacdo dayaxmadoobaad gurmaduba miciinuu rabaa taliya maarayni dhaxalkeennii muqdulkaa hadiya inaha sii muuqda waaba gabaabsiye mashaayiikh mageyniyo waxgarad maamul iyo dowlad hanraawaha ka caynteeya mamay ma kasta hiigaysa intaasu tixda ku dhan tahay waad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin